hargeysa ayaa faahfaahinaya ka bixiyay ujeedada socdaalkiisa warkaasina waxaa inoo soo koobaya Saciid Naasin ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya Ambassador Augustine Mahiga waxaa ku soo dhaweeyay gabadha caalamiga ee Cigaal International Airport wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar iyo saraakiil ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliland. Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxa uu sheegay in Augustine Mahiga uu wada hadal la yeelan doono xukuumadda Soomaaliland muddada uu ku sugan yahay dalka isagoo si diiran ugu soo dhaweeyay gudaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mar kale. Ambassador Augustine Mahiga waxa uu tilmaamay sida uu ugu faraxsan yahay mar kale uu yimaado dalka isagoo ku sheegay ujeedada socdaalkiisa mid uu ugu kurgeli doono dhismaha horumarka dawladnimo iyo xaqiiqada dhabta ah ee ka jira Soomaaliland iyo sidoo kale inuu xukuumadda kala hadlo qodobadii ka soo baxay shirkii London oo Soomaaliland ay ka qayb gashay. waxa uu xusay sida lama huraanka u tahay in Soomaaliland laga barto horumarka ay ku tallaabsatay muddadii ay jirtay. Augustine Mahiga oo aan weydiinay socdaalkiisa uu la xiriiro kadib markii xukuumadda Soomaaliland hakisay wada hadal ay la gasho Soomaaliya waxa uu sheegay in qorshaha uu ku jiro qodobkani hase yeeshee aanay jirin fariin gaar ah oo Soomaaliland uu uga sida arrintaasi. ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya oo la weydiiyay cidda ka shaqaynaysa go'aamada iyo sharciyada wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa uu sheegay in dhexdhexaadinta iyo mas'uuliyadda wada hadalka ay leeyihiin beesha caalamka iyo qaramada midoobay hase ahaatee aanu ku lug lahayn madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ka Soomaaliya. Ambassador Mahiga muddada uu ku sugan yahay dalka waxa uu la kulmi doonaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland xubnaha golaha wasiirada baarlamaanka mas'uuliyiinta axsaabta dalka waxaana maatinkiisana uu ku soo beegmay iyadoo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay hakisay wada hadal ay la gasho Soomaaliya taasi oo salka ku haysay kadib markii xukuumadda Sheekh Shariif ay laba xubnood oo sharci darro ku dartay guddigii farsamada dhinaceeda arrintaas oo xukuumadda Soomaaliland ay si aad uga biididay.